macmuusleyda ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Macalin Yaasiin. Sidoo kalena ay Al-Shabaab ka furteen qoryo iyo rasaas ay haysteen. Deegaanka lagu magacaabo Xagarey ee hoos yimaada degmada Cadale ayaa waxaa halkaasi xarun ku lahaa xarakada Al-Shabaab oo ay weerar ku qaadeen ciidanka macmuusleyda sida ay sheegeen dadka deegaanka. Shalay gelinkii dambe shantii galabnimo ayaan weerar gaadma ku qaadnay deegaanka Xagarey oo xarun u ah Al-Shabaab, waxaana halkaas ku dilnay ninkii u qaabilsanaa Cadale iyo 3 kale oo la socotay. Waxa inoo suurto gashay inaan ka soo furano qori AK-47 ah iyo rasaas badan. Waxaan helnay xog ku saabsan in halkaas ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka. Allah mahadiye dhankeena waxna soo gaaray ma jirto, ayuu yiri taliyaha ciidanka macmuusleyda Axmed Dhagey. Macmuusleyda waxaa garab siinaya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Hirshabeelle kuna dhiirigelinaya inay sii wadaan la dagaalanka Al-Shabaab oo ay marar badan ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.